sheekh maxamed magacaygu waa maxamed ibraahim waxaan ku noolahay dalka Sweden sheekh xaaskayga ayaa waxay soo gadatay alaab guriga lagu sharaxdo oo lagu qurxiyo alaabtana waxaa ku qoran magaca Allah iyo magaca Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam runtii aniga waan libsaday alaabtaas waxaana ila xumaaday magaca rabbiga in guriyaha lagu sharaxdo xaaskana way diiday inay alaabtaasi naga qaado ee sheekhow arrintaas iga jaahil bixi ma bannaantahay in guriyaha lagu sharaxdo magaca Allah iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaciisa jazaakum allahu khayran masaladaasi waxay ka hadlaysaa waa qur-aanka kariimka ama ilaahay asmaadiisa magacyadiisa oo darbiyada lagu qurxiyo ama mehe muxuu ahay looxyadan baalaan la yidhahdo inta lagu qoro darbiyada la sursudho ama maryo inta lagu qoro darbiyada lagu sharxo qur-aanka iyo ilaahay asmaadiisa iyo ma loo isticmaali karaa culimadu arrintaa iyada ah waa karaahaysteen qaarna waa xaaraameeyeen ma bannaanaynayeen qaarna waxay leeyihiin waa karaaha bal madhabuljumhuur oo madaahibta afarta ah waxay leeyihiin arrintaasi markay ugu yar tahay karaaha ku jirto shareecadu waa ka hatay ayib culimada qaarkoodna taxriim bayba iyo caddeeyeen oo a'imatulmadaahibka ka mida waxaa ka mida dadka diiday lajna daa'ima hay-atu kibaar ulculamaa mamlakada lajnada daa'imka fataawada iyaduna fatway ka leedahay masaladaas waxay leeyihiin ma bannaana maxayna u bannaanayn dhowr sababood bayna u bannaanayn bay leeyihin kow horta waa bidco saxaabadii nebiga sal alla alay wasalam iyo salafkii inay wax qurxistaan soo uma baahnayn soo mayna suuroobi karin inay intay meela ku qurxon ama derbiyada ku qurqurxsadaan soo uma suuroobi karin waa u suuroobi kartay ma sameeyeen mayna samaynin waa kow horta waa bidco muxdatha waa marka labaad waxay keenaysaa in qur'aanka ama ilaahay asmaadiisa la ihaanaysto oo muxuu ahaayey ama soo dhacdo ama lagu tunto ama meehe markii la guurahayo inta la qaado oo la soo fujiyo alaabtii lagu dhex rido oo la tuuro oo yacni imtihaan in qur-aankii adkaartii iyo qur-aankii iyo wixii la rabay in la weyneeyo oo iyadana la ihaanaysto la dullaystaa ka dhalanaya waxaa kaloo ka dhalanaya oo mafaasida ka dhalanaya ka mid ah maqsuudkii ilaahay asmaadiisa loogu talagalay ka soo horjeedaa iyo qur-aanka ya maxaa ilaahay ugu talagalay qur-aanka maxaase loogu talagalay magacyada alleh muhimmadan maaha in muhimmaddii loogu talagalay guryaha ku quruxsada lama dhihin soo ma laakiin maxaa la yidhi qur-aankana fahma oo ku dhaqmaa la yidhi ilaahay magacyadiisana waxaa la yidhi barta oo ilaahay ku barya saas daraaddeed maqsuudkii loogu talagalay sharciga ugu talagalay bay garab marsanta waxaa intaasoo dhan ka daran oo mafaasida ka mida loo diidan yahay waxaynu gaalada ku sallidaynaa iyo kambaniyada gaalada in ay qur-aankii ilaah asmaadiisa ay wasakheeyaan oo ka ganacsadaan sababta waxa weeye markay suuq u helaan oo innagu ka iibsanno jayno nijaas abaa qur-aankii samayn oo soo naashnaashi oo mid gaal oo kaleetaa meelaha wadwadiyo qur-aankii ahaanaysan aayatalkursigii muxuu ahay qul huwa lihi qul acuudu birabbi falq gaal baaba wadwataba suuquu la socda yuu ka iibinayaa ilan gaal kale ka iibsan maayo muslim buu ka iibsanaya soo saas ma lowlaa la joojin lahaa ma dhacdin inay gaaladu ay qur-aanka iyo ilaahay asmaadiisa ihaanaystaan innagaa marka sabab u ah wabitaali waxay dariico u tahay iyo wasiilo u tahay shay muxaram ah wa calayhi ayay culimmadu marka u kahanayaan qaarna u xarimayaan in loo ismaalo ilaahay asmaadiisa ama qur'aanka waxyaalaha loogu talagalay in la tacdiimiyo in loo isticmaalo waxyaalaha derbiyada la suro lagu qurxiyo arrintaa iyada arrin saxa maaha waa in laga waantoomo gabadhaa marka arrinta ku madax adagtay waxaan dhihi lahaa ninkeeda waanada iyo nasiixada ku wada insha allahu tacala iyaduna warka ha yeesho wallahu aclam